habeenkii ugu horreysay bishani ay bilalaysay waxau nabigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam iclaan ayaa xagga ilaahay ka imanaya malag baa dhawaaqayo odhanaya yaa baaqiya alkhayri aqbil warkii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrkee soo qaabil waa bishii khayrka weeyaan waa bishii naxariista weeyaan waa bishii dembi dhaafka weeyaan waa bishii naarka xoraynta weeyaan malag baa odhanaya yaa baaqiya alkhayri aqbil kii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrkee soo qaabil oo soo jeeso oo cibaadada ilaahay soo qaabil oo salaada taraawiixda soo qaabil oo qur-aanka akhriskiisa soo qaabil oo karatulkhayr bishani waa bishii khayrka ajarka badan laga helaye soo jeesa buu leeyahay malagaasi soo qaabil wayaa baaqiya shari aqsir kii dembiga iyo fujuurka iyo macsiyada iyo xumaanta ku dhiiranaya mar walba xagga sharka u degdegayow bishani bishii ilaahay la caasinaya dembiga la laaqanaya ma ahayna ka joogsa buu leeyahay oo ka gaabso waa bisha nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi haddii rabadaan uu yimaado albaabada jannada ayaa la furaa wa fii riwaayatin albaabada raxmadda ayaa la furaa malaa'ig albaabada naarahana waa la xidhaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maradatu shayaadiinna waa laga xidhaa bini aadan waa bisha keliya ilaahay jalla wacalaa qur-aanka uu ku sheegay magaceeda shahru ramadaan waa bisha maaragtaanee la yidhi waa bishii qur'aankuna uu soo degay waa bisha keliya ee nebigeenna uu yidhi habeen kasta oo bishaa rabadaan ka mida buu nebigu yidhi waxa uu ilaahay leeyahay addoommo uu naarta ku xadhaeyo waa bisha keliya ee la sheegay in albaabada jannada la furo waa bisha keliya ee la sheegay in albaabada naarahana la xidho bal tiriya fadaa'ilkayga bishaa rabadaan fadligay leedahay waa bisha keliya ee nebigu uu yidhi maradatu shayaadiinna waa laga xidhaa bini aadanka waa bisha ay ku jirta habeenkii weynaa ee qur-aanka ilaahay uu sida gaarka ugu ammaanay ee uu yidhi innaa anzalnaahu fii laylati alqadr tobanka dambana allah ina gaadhsiiye waa bil aad u barakaysan oo xurmaddeeda in la siiyo ayay mudan tahay bishani الصوم جنة صومك وحو نبيك كشيك فضائل كيس كذلك إنه يهي قاشان الصوم لي وأنا أجزي به إلى عين واكلها حديث القدسي صومك عنيك أيها إسكالي عنيك أنا أعطونك كعب المريض دول وبشأ النبي محمد عليه الصلاة والسلام يري صائمك إنتو نن أفرين وحو ليه دعاء الأقبل ومركا عداد ويسين دعيش هذا فرك ودي أرقروبي سحلق دعاء والله أقبلاي باهد هذا إلهي وشيب صومك وقاشان الصوم جنة نارتو قاشان كاغا نقونيا شهواتك النفط أيو قاشان كاغا نقونيا معاصر أيو قاشان كاغا نقونيا حنونا دختردو أي دوين كريوايان أي بشر رمضان أي دويسان bal dhakhtarrada waraysta oo dhahala bishee baad ugu shaqayartihiin waxay ku odhanayaan bisha ramadaan baan ugu shaqayarnahay nin dokteera oo maalin ka hadlaaya ayaa yidhi bishii caafimaadkaa timid bishii dadku ay bogsanayeen baa timid waayo baa lagu yidhi wuxuu yidhi bishaa cid noo timaadda umaba aragnay buui dadka bukaanku way yaraadaan waa bishii caafimaadka waa bishii ilaahay tabaaraka wa tacaala loo dhowaanayo وبشي دم بدافك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بشا نكا صواب النبي قوليه ما نكا صواب بشا كمدا نكا صواب النبي قوليه ذنبي سيهرون والله دافيا من صام رمضان بشا رمضان نكا صواب إيمانا إساقو إيمان له ويقين له وقرنا يا أمر كان إنه يا أمر الله حقي سكي مدي احتسابنا ومحي أجرك يا ثوابكنا إلهي تبارك وتعالى كدل بايو إلهي كرجينا إنه إلهي كأبا المريو دنبيكي سيه هراء ونن والله قد دافع النبي عليه الصلاة والسلام
من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ninka bisha Ramadaan salaada taraawixda u kacab nabigu leeyahay calayhi salaatu wassalaam isagoo ilaahay ku kalsoon oo iimaan qaba waxtisaaban ajar iyo thawaabna ilaahay ka dalbayo ilaahay ka rajaynaya ajar inuu ka siiyo cibaadada isagana dembigii horay uga dhacay oo dhan baa laga dhaafaa buu nabigu calayhi salaatu wassalaam وابشا ونبيين يري عليه الصلاة والسلام هدي متكين وأفرايو تمرها كو أفرب ونبي ولي تمر هدي وتمر واينا بيها عادها كو أفرب رسولك شريعة الإسلام هو عجيب لابدانا الدواء كجرته تمرتا محو نبي يقول تمرتا هو الرئيسي وحال العنتدى إلى هاي دولك وكسو صار أوردن مد والب في تميق كجرتا هيا تمرتا أوردن إلى هاي كو أفريبا لك hilibka fitamiga ku jira timirta waa laga helayaa caanaha fitamiga ku jira timirta waa laga helayaa bariiska fitamiga ku jira timirta waa laga helayaa wax liya waxa nabaataat iyo khudrawaat iyo maaragtan nicam ilaahay bil aadanka uu siiyay cunaya mid walba gaar ahaan fitamiga si gaar ah iyada loogu abuuray ayaa ilaahay intuu soo jamciyay baa ilaahay timirta inoo soo dhexgeliyay timirtu waa nicmada muslimiinta ilaahay khaaska uga dhigay waana zaadkii muslimiintu ay diinta caalamka dhan ku gaarsiiyeen asxaabu muxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam waradia allahu canhum ajmaciin markay risaalada muxamadiyada ay xambaarayeen ee adduunyada gaadhsiinayeen zaadkay isticmaalayaan wuxuu ahaa timir buu ahaa timir mana xumaato taariikhdeeduna ma dhacdo saalixiintu waxay odhan jireen aqalka timir aynan oolinna faqri baa aqalkaa yaalla markaa buu nebiguna leeyahay calayhi salaatu wasalaam ninkii soomayow haddaad soontid buu nebigu leeyahay kiina afuraya timir ha ku afuro hadduu timir waayana biyaha cad ha ku afuro biyaha cadna waa daahir buu nebigu yihi oo micdada jidhkaaga jeermiskii ku hadhay oo dhan bay